بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو هذا صاحبيال maanta waxaan bilaabaynaa course cusub oo lagu magacaabayo Microsoft PowerPoint. waxaan horey u soo qaadanay isticmaalka computerka iyadoo la isticmaalayo Windows 11. marka aad meel soo saarnay isticmaalka computerka kadibna waxaan u gudubnay applicationada lagu dhax isticmaalayo computerka waliba applicationada Office-ka. waxaan ka soo qaadanay Word ayaa soo qaadanay, waxaan soo qaadanay Microsoft Excel, maantana waxaan qaadanaynaa Microsoft PowerPoint. PowerPoint waa kana marka casharkan ayaan soo kacsanaya waa barashada learning PowerPoint, waa barashada Microsoft PowerPoint oo la soo gaabiyo BBT. okay, haddaba hordhaca barashada PowerPoint ay u gudbeyna. waa maxay horta PowerPoint? PowerPoint maxaa la? PowerPoint waa kana, waa barnaamij lagu sameynayo presentation ka kooban slides. waxaan loo adeegsanayaa bandhigyo xirfadeed, waxbarasho iyo ganacsi ayaa loo adeegsanayaa. tusaale hadeer casharkan oo kale waxa uu ku diyaarsan yahay aan ku soo jeedinayaa waa PowerPoint. sidoo kale bandhigyo qof markuu sameynayo seminar oo kale marka qofku uu qabanayo waxa uu adeegsanayaa PowerPoint. sidoo kale waxbarasho oo kale marka la isticmaalayo tusaale jaamacadaha oo kale waxa isticmaalayaan PowerPoint. casharada waxa lagu soo jeedinayaa waa PowerPoint. ganacsi oo kale xaysiin oo lagu sameyn karaa. marka waxyaabo fara badan ayaa loo isticmaalayaa PowerPoint.